kalfadhig labaad ee yeesheen golaha deegaanka degmada Elfweyn ayaa waxay ku doorteen maayir ku-xigeen cusub kadib kolkii ay maayir ku-xigeenkii hore ee xilkaasi loo doortay uu tagadaasi ka tanaasulay. Munaasabadaasi oo lagu qabtay hoolka shirarka dowladda hoose ee degmada Elfweyn ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo qaybta booliska ee gobolka, maayirka degmada Elfweyn, xogeyaha dowladda hoose ee degmadaasi Boqorro iyo dhammaan xubnaha golaha deegaanka degmada Elfweyn. Waxaana ugu horreynba munaasabadaasi ka hadlay maayir ku-xigeenkii hore ee degmada Elfweyn Cabdi Muuse Warsame oo halkaasi ka inuu go'aankaasi qaatay inuu xilka ka tanaasulo kadib markii uu aqbalay codsi uga yimi dhanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. gudoomiye ku-xigeenkii degmada Elfweyn ahaana golaha cusub ee midka la soo doortay si sharciyan la doortay, waxaan halkan ka cadeynayaa inaan iska casilay xilkii gudoomiye ku-xigeenka anigoo xeerinaya isu tanaasulka iyo wax wada lahaanshaha iyo isku tashiga dadka ku nool degmada Elfweyn oo tixgelinaya codsiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iiga yimi. waxaan aqbalay codsigaas uu ii soo gudbiyey madaxweynuhu. maayir ku-xigeenka cusub ee loo doortay Saaxiibaan Yuusuf Diiriye Odowaa oo isla halkaasi ka hadlay ayaa dhankiisa tilmaamay siduu ku faraxsan yahay jagada loo doortay, isagoo ku sifeeyay go'aankii uu saaxiibkii jagada ku baneeyay mid guul iyo horumar bulshada degmada u horseedaysa. maayirka degmada Elfweyn Baashi Xamdulle Warsame oo doorashadaasi kadib halkaasi ka hadlay ayaa isaguna soo dhaweeyay go'aanka geesinimada iyo wadaniyadu ku dheehan tahay ee maayir ku-xigeenkiisii hore uu jagadaasi ku baneeyay, taasoo bulshada degmada dhaxalsiinaysa midnimo wadajir iyo horumar. Boqor Maxamed Axmed Cali Ducaali oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa guul taariikhi ah ku tilmaamay soo afjaridda khilaafka golaha deegaanka degmada Elfweyn, isagoo xusay in arrintani ay ka naxinayso cadowga. wuxuu kaloo boqorku halkaasi fariin uga diray golaha deegaanka degmada Saylac uu ka codsanayo in khilaafkooda ku soo afjaraan wadahadal iyo isu tanaasul. waxaan ku adkaynayaa dadka reer Elfweyn ee ka dhaxayso dantu inay ilaashadaan danahooda gaarka ah sida maanta ay tilmaanta u noqonayaan. Saylac baa inta kale ka jirta wali kuwa Saylac jooga waxaan rajeynayaa inay sida Elfweyn yeeshay ayaan. gudoomiyaha gobolka Sanaag Aadan Diiriye Cigaal oo gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa isna dhankiisa ku ogaadiyay golaha deegaanka degmada Elfweyn isku duubnida iyo midnimada ay muujiyeen, isagoo maayir ku-xigeenkii hore tanaasulay ku sifeeyay muwaadin baaldahaba ka gali doona taariikhda Soomaaliland. isku soo duubay doorashada golaha deegaanka degmada Elfweyn ay ku doorteen gudoomiye ku-xigeenka cusub ayaa soo afjaray khilaafkii dhex yaalay xubnaha golaha deegaanka degmadaasi, waxaana xalinta iyo bardaaminta arrinta gacan weyn ka geystay oo ku suntan wasiirka arrimaha gudaha iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Keese Ismaaciil Bandiiq Layis Ergaawo.